kulan ka qabsoomay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare gobolka Awdal goobjoogna ay ahaayeen gudoonka wasaaradda waxbarashada iyo agaasimo waaxidada kala duwan ee wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ayaa isaguna waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada tacliinta sare ee dalka kulankaas oo ujeedadiisu ahayd mid isku dhafan ayaa waxa ugu horeyn goobtaas hadal kooban ka soo jeediyay isuduwaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta ee gobolka Awdal Professor Jeeke Cismaan Ciye saacad wasiir waxaan halkan imika ahaan anigu wali gudoonka ku cusub jooga muddo 3 bilood oo shaqo kale maanta la soo magacaabay 3 bilood waxaan halkan warbixin ku haynaa laba warbixinood inaan ku siino wixii noo qabsoomay iyo waxa markaa noo qorshaysan adii ilaahay dhaalay inta ka hadhay sanad dugsiyeedka salabaadna waxa weeyaan inaanu maanta kugu wareejino dhammaan wareegtada soo saartay ee taakulaynta abaaraha wixii aan dugsiyada ka soo ururinay oo dhamaystireena kugu wareejino iyo jaamacadaha oo qayba hadan ka warramo waxqabadkii koobaad insha Allah ilaahay noo hirgeliyo waxa ahayd markay xilkaada igmatay waxaanu dhammaan noo qabsoomay inaan la tashado bahda waxbarashada laga bilaabo xafiisyada ina xarunta maamulayaasha dugsiyada ina jaamacadaha iyo waalidada waxbarashada si aan uga duulno waxyaabaha baahir iyadoo u sameeyay inaan siino research ama su'aalo waxa ka soo baxa si waxa ka soo baxa halkaan uga tala qaadno waxa markaynu taa aragnay waxyaabi ka soo baxay inaan daba bilownay qodobkii labaadna dhaano wixii soo baxay inaan xafiisyada ku dardargelino oo xafiis walba oo hawshiisa ka oo hawshii galo haddaan halkan waxaan maanta kugu wareejinayaa lacagtii taakulaynta abaaraha oo jaamacadaha qaarna ay ku jiraan 3 jaamacadood ka mid ay soo gudbiyeen inay muxuu ahaay secondaryadii dugsiyadii hoose dhexe oo loo kala harin dugsiyadii gaarka ahaa iyo kuwii dawliga ahaa labadaba ay ka qayb qaateen haddaan lacagtaasi sheego oo imika waliba waana hal bil maarta lacagtaanu soo ururnay haddaan lacagtaas waxay shilin waxa weeyaan 9 milyan 233,500 oo shilin oo u dhiganta haddaan dollar dhigano 12,000 oo dollar iyo 130 dollar waxa kaloo ka shaqaale ahaan oo tii wareegtay guud soo saaray lacagta gobolka ka gooda shaqaalaheedu ee waxbarashadu waxay dhan tahay kaliya waxbarasho ahaan ee bayroolka laga gooyay waxay dhan tahay 160 milyan 840,000 oo shilin oo iyadoo dhiganta 8,240 dollar haddaba maanta mudan wasiir waxaan kugu wareejinaynaa lacag dhan 250 milyan 725,000 oo shilin oo u dhiganta 20,276.21 aynu kugu wareejinaynaa inaad naga guddoonto ilaahi daahir habane waa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare oo isaguna goobtaas ka hadlay ayaa waxa uu ka dhawaajiyay intii xoolayn loo sameeyo oo loo baahan yahay kuwa xoolaha kuwii beeraha qodanaya beerihii loo qodaa loo baahan yahay wasaacada loo qodo waxtarka maanta la soo ururinayaa maanta waxtaraya ilaa inta boosha la buuxinayo taxaruurkii la goosanayo ana ka shaqeyno weeyo marka shilinka aynu bixinayno ee ay waalidiintu soo dhiibeen ku mahadsan yihiin caruurta ujeedada aanu arrinka u keenno ahay inay dareemaan walaalahooda baahida haysa ugu dambeyn gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare gobolka Awdal Professor Jeeke Cismaan Ciye waxa uu si rasmi ah ugu wareejiyay wasiirka wasaaradda waxbarashada deeqaadaan ahayd oo loogu talagalay in laga qayb qaato gurmadka abaaraha Jaamac Xuseen Jaamac Dad Telefishinka Caalamiga Somali Cable Boorama